السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkay walaashay haddii aad mustaqbalkaaga iyo noloshaada aad u malaysid inaad ka badbaadaysid hadal bini aadam haddaba waad khaldan tahay. haddii aad u malaysid xan bini aadam inaad ka badbaadaysid طبعا imaam shaafici siduu yiri ayaan adigana ku leeyahay oo ah waxaa tahay jaahilka adduunka ugu jaahilsan, cilmi kasta lahaw, aqoon kasta lahaw, fiqhi kasta lahaw. imaam shaafici raxmatullaahi tacaala calayhi waxa uu yidhi adduunka waxa ugu axmaqsan ugu doqonsan ninkii hadal bini aadam filanaya inuu ka badbaadayo xanta bini aadamka, inuu ka badbaadayo dhaga hadalka bini aadamka. lianna nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa ay ku dhaheen waa saaxir, waa shaacir, waa majnuun. bal intay ka tageen ayay allah subxaanahu wa tacaala ku dhaga hadleen oo ay dhaheen waa thalithu thalaatha. marka sideed adiga uga badbaadaysaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaga hadlay? haddaba caafimaadkaaga waxa uu ku jiraa inaadan dhegaysanin dhaga hadalkaas, xantaas iyo waxa lagu geysanayo. haa, waan ogahay inaad burgoynaysid, waan ogahay inaad xanaaqaysid, bal dhegayso jawaabtan uu allah subxaanahu wa tacaala siinayo nebigiisa khayrulbashar oo uu ku leeyahay walaqad naclam annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix. waatana daawadaya fasabbix bixamdi rabbika wakun min assaajidiin. allah subxaanahu wa tacaala u tasbiixso ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa badi, ilaahay subxaanahu wa tacaala caabud ilaa intay kaaga imaanayso yaqiintaada. waan ogahay waxa ay ku dhaheen, waxa ay ku leeyihiin, waan ogahay inay kugu dhaga hadlaayaan oo qalbigaagana murugoonaayo, laakiin ha u bixin oo waxaa dhahdaa salaam salaam, nabadgelyo nabadgelyo. qof kasta oo ku dhaga hadlo nabadgelyo dheh. walidaa hadda ka hor imaam shaafici nin ayaa u yimid oo yidhi ninkaas iyo ninkaas baa kugu dhaga hadlay. imaamka raxmatullaahi tacaala caleyh waxa ugu jawaabay haddii aad been sheegtay beenaale ayaa tahay oo kadaa'ib, haddii aad run sheegtayna waxaad tahay namaam ama namiim. axibatii fillaah, hadalka bini aadamka dhigtaha u dhigin, haddii aad dhegta u dhigtidna tan kale ka furo. waa walaalkiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.